السلام عليكم لما أصحابتو وسلامنتين مeel kasta dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelka Xaydarta waa casharkii koowaad oo kamid ah casharada taxan noqon doona oo ku saabsan barnaamijka Sony Vegas Pro 16 casharadaas oo si free ah uga bixi doona channelkayga waxa idin soo jeedin doona anigoo Xaydar maanta casharkan waxa uu ku saabsan yahay qaabkaad ula soo degi lahayd waliba si free ah ula soo degi lahayd barnaamijka Sony Vegas Pro 16 marka ugu horeysa waxaad ku dhufanaysaa linkiga description-ka ku yaal ay ku qoran tahay halka kala deg barnaamijka Sony Vegas Pro ka ayaad ku dhufanaysaa waxa ku soo bixi doona qaabkan ayaa ku soo bixi doona marka waxaad ku dhufanaysaa calaamadda download markii uu ku dego barnaamijku wuxuu kugu soo bixi doonaa qaabkan waxa jira waxa la dhaho WinRAR marka hadda WinRAR ayaa ku xiran wuxuu kaaga baahan yahay inaad extract ku sameyso marka WinRAR-kan waxaan ku soo galiyay description-ka hoos ayaad ka eegi kartaa waxa ku qoran download WinRAR halka kala deg WinRAR-ka marka halka ayaad ka heli kartaa marka saad dhahayd right click ayaad ku dhufanaysaa extract hiya ayaa leedahay wadayaa ilaa uu dhameeyo waa sugaysaa marka uu dhameeyo intan ayaa ku soo baxaysaa si aad barnaamijka computer-ka u dejiso halkan ayaad ku dhufanaysaa double click ayaad ku dhufanaysaa hadba luqadda aragtid ayaad dooranaysaa English, French, German iyo Spanish next aad English ayaan dooranayaa kan waxa leedahay I have kan saraad dooranaysaa I have read next waxaad sameynaysaa halkan waxa ku leeyahay meesha uu gali doono computer-ka uu ku gali doono ka bedel sidaas u deynaysaa local disk DNC-ga ayuu galayaa kana waxa leedahay create shortcut on desktop-ka waxaad igu sameysaa shortcut ahaan inuu ugu yaalo ayaan rabaa kadibna install ayaa leedahay soconayaa ilaa inta ka dhameystirayo waad sugaysaa uu dhameeyay marka waxaad ku dhufanaysaa finish hadaynu halka u soo degno waxaad ku arkaysaa shortcut-ki laakiinse wali ma isticmaali kartid waxaan sameynaynaa waa jabinaynaa halka batch aad aragtid waa meeshii lagu jabinayay si free ah ayaad ku isticmaalaysaa hadaad kan jabiso laakiinse haddaad toos u gasho trial ayuu kaa noqonayaa unu kaa dhacaya marka kan waxaad ku sameynaysaa copy ayaad ku sameynaysaa kadib waxaad tegaysaa local disk C waxaad ku dhufanaysaa program files-ka tan sare ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato waxaad raadinaysaa folder ay ku qoran tahay Vegas markaad ku dhufato waxaad aadaysaa Vegas Pro 16 markaad halkaad tagto waxaad raadinaysaa folder ay ku qoran tahay protein double click ayaad ku dhufanaysaa kadib marka uu soo baxo right click ayaa leedahay bas ayaa leedahay marka saas ku soo baxdo waxaad sameynaysaa replace the file in the destination ayaa leedahay okay ayaa leedahay continue ayaa leedahay waa lagu bedelayaa marka hadda waa isticmaali kartaa barnaamijkii hadaynu galno qaabka ayuu ku soo kacayaa hadda programkii waa ku degsan yahay computer-ka markaadna saas oo kale ayaad ugu degsan kartaa oo fudud yahay qaabkaad ula degi lahayd waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waxaa inoo ballanaa muuqaalka xiga insha Allah